munaasabadani ay xilka kula kala wareegayeen barasaabkii hore gobolka Gabiley iyo barasaabka cusub ee loo soo magacaabay Xamse Maxamed Cabdilaahi ayaa lagu qabtay xarunta dawladda hoose degmada Gabiley waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ah xubno kamida golaha wasiirada oo qaal waxgarad salaadiin ka socotay gobolka Togdheer awdal iyo Gabiley iyo sidoo kale xildhibaanada golaha wakiilada golaha deegaanka iyo dadweynaha aad u tiro badan waxaana ugu horeynba halkaasi aad la soo dhaweeyna ka jeediyay uqaashay waxgaradka gobolka Gabiley iyo xubno ka socday gobolka Togdheer awdal oo dhamaantoodba Ilaahay uga baryay barasaabkan cusub ee loo magacaabay inuu Ilaahay xilkaasi ku asturo halkoo Ilaahay uga baryeen barasaabkii hore gobolka Gabiley inuu Ilaahay sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay barasaabkii hore gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine iyo sidoo kale barasaabka cusub ee gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdilaahi oo labadooduba ballan qaaday inay wada shaqayn doonaan isla markaasina uu ku soo dhaweynayo barasaabkan cusub ee gobolka Gabiley barasaabkii hore gobolka Gabiley gabagabadii halkaasi waxaa la kooban ka jeediyay wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Maxamed Cismaan Saxardiid wasiirka wasaaradda warshadaha Shacayb Maxamed Muuse wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cismaan Yuusuf Garas wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda oo dhamaantood iyagu soo dhaweeyay barasaabkan cusub ee xilka loo magacaabay iyagoo sii sabootiyay barasaabkii hore gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise iyaguna waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan Mustafa uga marxaati kacana hadaan nahay madaxdii la soo shaqeysay anigoo xildhibaano oo la shaqeeyay anigoo maayirkii magaalada oo la shaqeeyay waxaan Mustafa uga marxaati kacana mas'uuliyadii uu hayay inuu daacad ka ahaa waxyaalaha lagu xasuusan doono gobolka ku xasuusan doono koow waxa ka ahaa inuu doonayay isagoo barasaab xitaa hadduu kursiga ku waayayo inuu gobol aad baan u sii sagootiyana barasaabka cusub hore waa looga dhawaajiyo horta fariinta dee burca laynooga soo diray halkaasaa laynooga soo diray saaxiibkiina muraadna hore uu soo sheegay qaar kaloo badanna way soo sheegeen ina muraad wuxuu igu yidhi talow waxaan garan waayay meel alla meel aad ku soo ducaysateen sanadka xabisa ma ahayn laba mas-uulo marka hore inooga yimid Togdheerna way jiraano Jamaal baa joogo isna xeer ilaalintii gobolka Togdheer ahaa iyo Cabdi Muuse taliye qayb anigu xafladii aan u qabanay ku soo sagooteeday barasaab Xamse ayaa waxay soo hormaray habeenkii baan daawaday marka laba meelood baan aad u eegtaa waa labada meelood dhaqaalaha waddanka ka soo baxo waxa weeye waa Berbera iyo Gabiley labaduba hadday ka bukoodaan waa madaxii iyo dee waxa weeye ruux waxa weeyaan qalbiga ku xanuunay iyo qulubta marka waxaan isiri Berbera way bad qabtaa Gabiley hala gaaro aadna waa lagu burmaday maskaxdayda waxa ku soo noqnoqday biyo waa la geeyay bariis waa la geeyay haruur wax walba waan arkay maxaad ku cawsa arinta cidilo uguma labaynay go'aan aniga iga soo baxay buu ahaa 100 baabuur oo baada ayaan meesha kaga dhawaaqay runtii waxa iskay garab taagay dadweynahayga qaaliga ah ee bacay mushtarka leh ee odayaasha leh ee dhaqan kale reer burco badan oo meetigeen joogtiray noqdayba maanta hadii mucaaradii faraha badneed ee tolay fartay diloori jiray hayba maanta gobolkaasi waxaan ka tagayay boqolkiiba 90 kulmiya ayaan ka tagayay oo dowladda waxaan ka tagayay gobolkaasi maanta isoo booliiska deegaanka ee naanays kala baxay ee golayaasha deegaanka Gabiley soo marinaysa si jiray oo mar walba muran ahaayeen ay maayiradu ka baqan jireen noocaas taawog raysiinaya laba nin oo socota ah oo neef ariga wata oo meel cidla marayo oo neefka iska qaranayo ha neefkii bay iska qasheen solayga la saaray midba dhinac uu ka soo fadhiistay wuxuu markii la fadhiyay uu yiri war Cabdilaahi barsoo yarka halkaas oo kale la istaagay war inaad waxaan doonayaa halagaysiigu
kii kale ilaahay uu keenay wuxuu oo maxaad igala faqaysaa labada inuu qurayno hayne ma halkiiba igu weydiis faqay ku wanaagsantii in kasta oo dadweynaha maanta la jooga ay reer Soomaaliland wada yihiin haddana arrinta diiwaangelinta reer Gabiley hadeenay faqaaraynu ka yeelanay waxay tahay dadkii wax ka dhiman yihiin ama se baahaya istaa ku wareegta qabiilo iyo saqajaannimo iyo waxaynaan garanayn waa gobolka laga masruufo Somaliland asagana saaxiibaa laga masruufo farbadan qabaayilka reer Somaliland intiisa badan ama wuxuu noqon karaa gobolka ugu badan ee qabaayil isku dhafan degan yihiin waxaana keentay taasi inay markaa gobolka xadaarad iyo horumar yeesho halka gobollada kale qaarkood la garta cidda iska sii degan ama horjoogaha u ah runtii maayar wanaagsan marna waad wala wareegaysaa marna waad buuxinaysaa waa tay kaga duwan tahay jagooyinka kale ama madax dhaqameedka ama golayaasha gudoomiye shiine wixii halkan ka qabtay horumarku ku jira indhuhu markay jeclaadaan taas waa kaa labadan barasaab waa la idiin soo dooray barasaabka horena waa la idiin soo dooray waa nin aad taqaanin awalba عداني وصاحب قاليا ووزير سراء وركومة حزب الكلية ما أنت هالكن وحنا مركز لقى هذا يبرعيو يمارك يقبلي وعدود حزب الكلية وماشي نسيلاية كسر ساعتي لما ضبط حوك أقوم بدن وكهذا ما أنت نروح لنا هاي بديك كوبات مصبي حين كسر صارنا يدو السماء لما كسر صارنا وقبلي يتبنى هذا بوتا كسر صارنا hadduu gaari yahay 100 gaari iska dayo aan maqlayo gaarigii 1200 ku joogaa inuu halka ku yimaado cawskaas waxa weeye reer Togdheer waa u dhamaayeen haday bacad leeyihiin haday dawladda yihiin haday waa Togdheer oo dhan baa u dhaqatay waxa soo dhameeyay wuxuu ku yimi waa baaqa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolada abaaruhu hayeen ugu bixiyay kurmad balaaran baa socda oo ilaa askariga lacag laga jarayo haduu wasiir yahay haduu barasaab yahay haduu baac mushtari yahay waa Nimcaan Dheeg Ibrahim TV qaranka Gabiley.